kulanti wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada channelka Salma Vlog and Entertainment. haddii nagu cusub tahay subscribe oo qaybta gaduudan ku dhufo isla markaana furo meesha gambaleelka ah si aad noola socoto oo aan muuqaalada aan soo gelin doono ay kuugu soo hordhacaan insha Allah. xeelada isdifaacidda ragga iyo dumarka waa mid laga baahan yahay marka ay timaado difaacu nafsiga waxa loo yaqaano dalka Koonfur Afrika waxa dhawaan ka dhacday wiil iyo gabar saaxiibo ahaa ayaa waxa la sheegay in ninku isku dayay in uu kufsado ama xoog uu ugu galmoodo gabadhaas iyada oo aan raali ka ahayn. sheekadan waxay ka dhacday gobolka Eastern Cape. gabadha ayaana lagu soo oogay dacwad isku day dil ah marka la eego ninka oo carabka ay ka qanintay ama ay ka goosatay sida la sheegay qayb kamida waxaana isku daygaas uu ahaa bitri Kufsi uu jirkeeda inuu xoog ugu galmoodo uu doonayay. ninka ayaa ku andacooday in ay ahayd gabadhaas saaxiibtiis oo ay ballan lahaayeen balse markii uu sheegay inuu isku dayay inuu dhunkado ama uu shumiyo ayaa ku samaysay qaniyo. waxaan ka war helay in ay koronto igu dhigtay oo kale ayuu yiri markii carabkayga ay carab ilkaheeda ku qabatay weliba miciyaha ayaana ii adeegsatay buu yiri. gabadhan waxay sheegtay in ay difaacu nafsi samaysay isla markaana aysan iyadu ahayn mid dambiile ah ayna difaacu nafsi ay samaynaysa awgeed sidaas ay samaysay kursigaas lagula dhaqmi rabay awgeedna ay sheegtay in ay ka hortagtay. qofka waxa laga baahan yahay ilaa xad oo xitaa diinta ayaa qabta inuu barto difaacu nafsi waxa loo yaqaano si marka dhibaato ilaa xad aad qofka iska xakameyn kartid. gudaha daawadayaal intaasaan ku soo gabagabeynayna muuqaalkan oo aad ka daawanayseen channelka Salma Vlog and Entertainment. intaan muuqaalkan mid lamida isku arki doono sidaas iyo nabadgelyo.